شير قرية لانقاب يهون لانقاب كلو شير قرية ضد ملهدين أنا قاعوني هالليا أم سو سوريات بان وحما هاي عوان كني كدول بحتان أنا قاعستا ولقي عوان كلليه كما صوغلين لكن حيني هاي قوة ديدي أو ديدان كصفر سو ما ذكرن marka sheer gareeya waa nin jid waa qanin halkan ka hadlaya oo hoodaal waa nin wareeya dhul bahanta waxaan rabnaa runta inaan isku sheegno koodee waxay ku kalifay xilliga inaan live soo galo saacaduna wait waxba nini sheegay wax yar waa sagaalkii iyo barkii weey xilligan warigii laaf leeguma arag asxaabtu way garanayaan dhul bahantow waan ku qajilay anigu waan ku qajilay anigoo DDS ayaan gurmad ka af ahaana inaan ku damqaday damiirkaygu wuxuu siin waayay damiirkaygu jira ay siin waayay inaan ka aamuso ministaati ma ahayn aniga ku caayayo ninkiina dahaba haaba soo wacaya live ku jira ku dhaha u sheegay isticmaalkiisa inaan ku jiro mid baan inii sheegay dhul hantow Soomaali run markay tahay diintu laba qolo soo heerka soo gaarsay waa muhaajiriin iyo ansaar markaynu dhab ka hadalno waxa tiin ansaarta Soomaalida galada ninka rag oo la siiya oo isaaqanba iyo door idinka halka soo gaarsiiyay iyagoo John iyo Maria iyo Mareykalaara iyo Andalos iyo Lucius ayaa diinu keenteen ma diidanin hatta intay daawanayso waa 3 qof 1 qof inay laangaab iyo halkaas ka garanaysaa هذا رنتو ميني شيغا horta maxaa la qeexaya maaban iskaga aamus horta bal illa dhulmaanta inima caayo idinka inima caayo laakiin runtoon baan inii sheegaya wallahi waan inii qajilay Soomaali darwiish baa tirahdaan haddana sida ay tahay waxaad ku kala dhex jirtaan ma jeerteen iyo isaaqbad ku kala dhex jirtaan waa ninka ragga inuu dhinto ayuu ka xigaa inuu ciil iyo gumeysku aabti hay soo wicin ciwaankaagii baan kaga jiray daaway ciwaankaagii baan ku jiraa ciwaankaagii baan caaw haystaa وحرمه كويستا واني يبرينا كا هدايا ام بنين جيد واقع سوميدان غران اني marka wuxuu damiirkaygu siin waayay war ilaahay baan inagu dhaariyo Soomaaliya ilaahay baan inagu dhaariyay u fiirsada raxan weyn oo ku jirta pointiga ayaan sheekhash soo cuntay sidaas ay cuntay inta xaqoodii ay weydii dhul bahantow adiga mid baan ku sheegaya mujaahidiin dhan baa ka dhalatay على الدوح baa ka dhashay qaar ba hadda aniga halka iga soo caayay inaan dhul bahanta caayo aan adiga kuma caayo laakiin adiga aan ku doodaya daarood marka la yiraahdo waxa kaga jirta alif halka u horeysa kaga jirta idinkay ma jeerteen haddana maanta ma waxa dhul bahanta u qaadatay inaad laba dawladood dhexdeeda ku jirto warwaabad qaadato oo galaanay laakiin haddana inta xabad lagu soo qaad halka laga saaro miyaad ogolaato gumeysiga war dhul bahanta sidan ma ahaan jirin wallahi inay sasan ahaan jirin nin على دوح اللي هذا قبل جيسي بان كلا قرنينا يمدو خامة قبل لكن ندل بانتا وحير والله هدو سنقال دول كاميرين والله ندل بيني قصي دين بو يدور كويدي سوما يلان قرن هون مركا اينو اسكو شايغنو الى هاي وحال يرقوم مدو الليو إلا ايو غايس دليان مويل وعيد كاهب لقروح بدن مجرتو هون مركا انو كاهد الله نين بسبانا وشركين عاول لعوريان كعب سنيان ما شاء الله نية برهيان هاي الليلة إلا هو سيكس باقي هل باكا ديمان سيكس باقي هل باكا ديمان اسكسو بيحي دونتا mid baan inii sheegaya aniga oo yabareeyay deegaanka waxaan ku haystaa quwad congress baan ka ahay deegaan congress baan ka ahay suuli lagu xaara haday doonayso dawladda xabashidu inay Itoobiya dhisto aniga nin yabareeyay itimaaday ya wallahi oo billahi oo tallahi inaan been ku sheegayni liyu boolisku markay ay curyaameen ay u badu nac ka soo siisay ninka dhulka la weydiiyay waa aniga nin yabareeya jid wax ka bakaalay ilaa jid wax isku wada jiray waranu deegaankan degaa anigu dhulkayga saasaan u difaacanaya anigoon haddana aan madaxweynihii aan ahayn ayaa haddana si congress-ka leeyahay maxaanu qabanaa hoodaalow anigoo nin yabareeya adigoo dhulbahanta ah oo dadkii diinta u keenay oo damiir leh oo gabyaasha maanta u caansan adiga ka dhasheen oo waxaan ku yiri Soomaali maanta haddana adigu joogi lahayn gannad aragaash taadalo waxaas la dhihi lahaa war dhulbahanta waa wiinaw inaad legend ahayd awgeesnimadaadii markaa dishiishe ما شرتين كسكي قبل وحنا ولقي مقل أي ضشي كهيستا إن هذا المساسات قرتين
dhulbahanta dadnimadii iyo geesinimadii aalayd halkay ku dambeysay hadda qaar ba halka iga soo caayo leh maxay taqam waran hadda ma adaan ku caayo mise adigaan ku doodaya ma dadnimadaadii hore jirtay baan ku soo xasuusinaya ma waqtiga iyo history adigu waaye aragnimada aad lahayd ban bartaa soo dhigay adiga ku helay waxaan diidanahay maanta adigoo nin weyn aha inaad dhulka timaado dad baa waxay soo qorayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war qabiil iskuma dirayo I'm not insulting af ingiriis maxaa loo dhaayay insulting mise abuse qabiil ma caay laakiin waxaan qaadan waayay madaxdii daarood maanta inay ku kala dhex jiraan jigjiga waxa jirta buur la dhaho buur fiiq buur kana halkan ay ku xigtaa wada soo dhex marta ma dartay idinkuna waxaad noqoteen wadadii wax walba inta saa loo soo maro nothing ما بحساب سندين با دول بانتو ما بحساب سندين انت تسكو ذا كان سوى تهريبا نعلى با idin keen dhalay weydeen nacala yama hurtina ku yaal way dad noqdo isaaq iska celiya dad noqdo ma jeerteen iska celiya xaq yagi aawin hayad miska garaacdan abdi maxamed umar bah sheekar baa ni sheegaya xilliga abdiilay oo talada hayba bartira ugu tagay abaskuul way u tagtay ogaadeen way u tagtay cid walbaba intay u tagtay xaqeeda weydiisatay markaas uu yiri hal quraan ka shaqeysanayo yiri yabarre waa anigan madoow kula hadlaya ninkan guudka wuxuu yiri yabarre laba baan u arkaa ama qolo walba uu yiri intay ii timaaday miiska saa ay u garacday tiraada xaqaygi nasiib waan siya way heleen buu yiri laakiin yabarre wali nintu yimiday miiska ay garacay ma jira laba baan u arkaa buu yiri ama doqonnimay ka tahay amba adigay kugu soo maqan yihiin oo adigay kugu soo xaabo guranayaan buu yiri tiibaana dhacday isagaana u xaabo guranaynay maanta waad aragtay soo ekaaday calooshii inta leekay intaasay noqotay way baabacday jiin baan u dirnay xabsi baan u dirnay waa ninka rag waa ninkii go'aan yeesha dumar baad maanta leedahay dumar qurxoon oo yani dollar laga dhiibo baad leedahay rag mabalihidba aanu nin dhulbahanto oo maanta ka aqaano wallahi ina dahabo ilaaha raxmaanka ku dhaartay inaan nin kala garanayn ina dahabo kaliyaatan ka garanaya waa ina dahabo kaliyaata nin maanta social media ku jiro oo dhulbahanta u hadla ninka baan garanaya aaw kuwi kale may dhinteen halkeed ka baxdeen war ma jeertan runay ni sheego ma jeertan dumar buu leeyahay muu inagu dhaafiyay rag male ma jeertan muu inagu dhaafiyay dhulbahantaw igu wallahi igu billahi inta geela dhacdaan mid baan ku sheegaya ali duux Allahu naxariistee wadaad intuu geel soo dhacay culumo intuu geel ka soo dhacay raggaas aan lahaydeen intuu culumo geel ka soo dhacay ayaa loo yimday isagii afar nin oo kale limintiina ni sheegay fiirsada sidii quraan iyo dhan walba looga waday afartii kale geel dhiibeen isaga ninkii dhulbahantay cali dhuuxa wadaadkii gabayga baa kala maqan wuxuu ku yiri shicirku aadaanka waxba haysirabin sheekhina tahay wanu jeedaa ku yiri sheekhina tahay wanu jeedaaye waxba yani waan ku arkaa inaad sheekhte waxba quraankan iyo waxba iga qadmis intu xaafad walba gurigooda ugu tuu xiradooda ay ku soo moorudubi jiray ninkii sayidka ku yiri buu ahaa abtirsiinta waxay gashaa ayda reer xamare Soomaalidan gar aadaanku waa ka afiya been wiil haduu oorka ku jiro kaamaan oradneen abtiyaaladii waa kuwa oo soo jibiyay raggaas aan lahaydeen aan way niga dambeeya big respect madaxdii daarood baatiin way niga daba tukanadaan aan qaasatay niya bareeyay idinka noo imaamo hadaa nahay dadka daaro hatta hablihi dhulbahanta aniga hadda fariiso taagay caaya ma wax loo hadlaa hablihi dhulbahanta indhiilay geesi baa taynaadeen oo ragga iyaga moraal siiyo dulligan iyo dulmigan ha ka dhiidhiyaan ay naag walba saa ii soo qoraysaa na ka ii soo qoraysaa aan igu yaala adigana kaasa kugu yaala anu ilaahay warshadani ka sameeyay soo maxad igu caydaan adiga baan ku doodaya dhulbahantan leeyahay dhulbahanta boqortooyada haydan dad madax xood taliyada haydan isaaqo gannat Angelina Jolie iyo Brianka iyo Rahel dhigi jira ay diin u keenteen Soomaaliya oo dhan only not isaaq horta Soomaaliya waxay dhahaan hodaale muxuu isaaq u caay waayay mu ka cabsadaa hadda bas aniga ku tufaya nacala shaydaankiina ku yaal dhulbahanta dad ma si jeegayga yara inuu niya bareeyay ni hadlo 300 bay daawanaysaa 3 daqiiqan ku jira 10 daqiiqan ku jira aan kama ihi sawaariikh ma saa u gamaa soo mid baan inii sheegay dhulbahanto ilaahay qoom ma duleeyay ilaa iyagu is duleeyaan mooyaane waa inta dawlad walba inta hor tagtaan farmaajo calanka buluug waxba ku tari maaye tusaale yar baan ku siinaya tusaale yar oo naqan ni waa yaargaan wax iga qarso idageyso waa niya bareeyay ninka kula hadlay oo qoran madow
mid baan kuu sheegaya gobyarey yani jigjiga hadda xadhigii baa la geeyey gobyarey waa iska tuulo waxaa dega samaroonka weliba qolo aada yooniska waana ree abtiga ayaa dega soo maadan garan wax yar baa loo sameyn waay ambulance ayaa loo keeni waayey waxay sameeyeen calankii oromada intay calankii dowlad deegaanka ka tuureen ayay calankii oromadu meesha sudheen eegada waa samaroonkii weliba laf ka mid a oo aada yooniska intay calankii dowlad deegaanka intay gebigiisaba cuneen ayay calankii oromada meesha sudheen hal ambalaas bay doonayeen 2 ambalaas ba orod loogu geeyey warma waxaad ka liidataan jufo ka mid a samaroon baad ka liidataan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ana laangaab hadlay nacalla yamaahuurtiina iyo shaydaanka tiimba ku yal awal wax istaa gabadha ka guursat wallahi idaana u qalmin wax gabadh laga guursado dhulbahanta kii hore buu ahaa dhulbahantii geela xeradan iyo xaafada intuu dhaw xataa habla soo dhici jiray kaas dhulbahanta laakiin kuwiinan abti runta aniga aan bay igu dilaaca aan bay soo inkar aan ba waxa doontaan bay igu dhaw habla qurux badan baad leedihiin oo quruurada laakiin rag meesha kuma haysaan wallahi idaan rag meesha ku hayn ma muusa bixi baad iska celi weydeen ma jeega weliba isaaq hadduu in wada gumaysanayo maasha allah six baagayga baa uu muuqanaya kor ilaahu yasta il baa iga dharagtay garan maayo caawna bahal il la yiraahdo iga dhartay kowdi aniga maalmahan ana iska yabanba waliya billahi iyo talay go bismillaahir rahmaanir rahiim mid baan ii sheegayaa dhul bahantee ambalaas caanood iyo dhulkan ka soo guuro horta ma meel aan laas caanood ahayn baa degtaan dhul bahanta meel aan laas caanood ahayn oo degtaan miyay jirtaa anu maba garanay meel aan laas caanood ahayn oo degtin war dad yani inaga caqli badan inaga geesisan inaad inkaartan inagu dhacday maxay ahayd aawe raggiini halyeeyadiini mee aawe dadka diinta u dhigi jiray sayidku ciidan aan dhul bahante ahayn ma garab socon dadkaas dhulbaanta buu isku halayn jiray horta inan dhulbahantay haddaad aniga caawa bartaa iga soo caydo amba nin dhulbahanto halkaad iga soo caydo nin dhintaa tahay saa ula soc anigii ku dhiirigelinayay cali dhuux baa ogaadeen wuxuu ku yidhi anigii dirayay sidii daraawiishta ciidan igu soo direen buu yidhi soo maadan garan ogaadeen markuu caayay ninkaas ogaadeen ula dagaalami jiray waa waxay iskaga daadsanayna docna garanayn buu yidhi soo maydaan garan mid yar baan inii sheegayaa wadaad la dhaho abu maxamed guure oo reer jigjiga ahaa ayaa wuxuu ka cabanayay gumaysigan yani ay xabashida ku hayso markaasuu gabay u dhiibay horta haddaan caawa meeshaydii dhannaa gabay ka dhigo waxay dhahayaan hoodaale ma gabyaaba soo maydaan garan markaasuu wuxuu yidhi gabayga dhexda ha niiga soo qaatee boqortooyadii ii sheeg maxay ahayd hobyo isagoo isla gurmado duraba wuxuu yidhi casho noolba naagaha iyaga cududda haystaan cajiinkaan u karnaa markay calalis doonaan labiib ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saarnaa sow waxaan kusii jirayaa 2 daqiiqo kale aan kusii jiray insha allah 2 daqiiqo kale aan kusii jirayaa deetana waan iskaga baxayaa biidni illaahi alkariim waan iskaga baxayaa 15 markay tahay amba 16 man live ka soo gabagabeynaya si sharaf leh aan uga baxo dhulbahanta walaalin ma caayo dhulbahanta I'm not insulting abusing to you I'm only defending your dignity English kuma naqaana I'm defending your dignity I want to coming back your sharafti people dadnimadaada inaan soo celiyo ayaan doonayaa soo maadan garan ya so يجب أن تكون رجل قويا إما أنت حبشنا واحد هان هوت يالله وشاء واحد هان يموت أنبسا هوت يالله وشاء يشال البيدان لبا حد انتي حبشنا واحد كم عمانتي لبا حد انتي أي غنول بعد عما ما واحد ما في عنا dhulbahanta inuu dabar go'o xilligii dadkii hore mujaahidiinta ay dhinteen haddaan magac xumadan iyo awooyaashin iyo abkin iyo isirkiina aad magac xumadan u soo jeediseen wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu halkan nagala socoteen waa idaacadda dhulbahante ninka soo jeedinaya waa hoodaale YBR waa nin yabareeya soo wayni salaamaya nin dhulbahanta xataa soo qabale ma jiro aan dhulbahanta bes waan ka baxayaa sakinaan kusii jiraya wani dad noqda oo damiir isku yeela dhulkaaga haddii lagugu yimaado ood u dhiman weydood geerida ka baqdo wallahi inaysan raganimo inuma dambayso anigu dhimahanta haddaad doontaan madfac igu soo rido dumar waa nii aqaanaa oo dumar qurux badan waad leediin cid niga habla qurux badan ma jirto laakiin rag inuma tiriyo rag maalinta waxaan nagu tirin doonaa la yiraahdo dhulbahanta waa maamul goboleed gooni isu taago Soomaaliya kamid ah
laakiin intaan aaminsanahay marna halka wuxuu isaaqii wuxuu ku dhex jiraa ma jeerteen dumar baa inii arkaa waa hoodaalayo barnaamijka salaamay live-ka halkaad kala socoteen waa ina dahabo habeenka inii wacnaadaniyo